waxaan daahfuraynaa ururka la magac baxay ummad oo ah midaynta ummadda reer Adal. sida uu sheegay gudoomiye Muumin daahfurka ururkan la magac baxay ummad kulli waxa uu ku saabsanaan doonaa oo ka shaqeyn doonaa oo loo asaasay horumarinta gobolka Awdal Gabiley iyo Silal. kooxdan kuwada midaysan ku midaysanahay ururka midnimada Adal ummad maanta ay taariikhdu tahay bishii 3-8 oo ku beegan 19 Ramadaan Mubaarak ilaahay bisha khayrkeeda hayna siiyo waxaan daahfuraynaa ururka la magac baxay ummad oo ah midaynta ummadda reer Adal. ururkaas oo ujeedada aan u asaasnay maanta ay tahay inuu ka shaqeeyo ummadda isku xidhka Adalyanka ku nool Awdal Silal iyo Gabiley. waxa kale oo ururkaasi uu isku xidhayaa ummadda reer Awdal ee ku baahsan daafaha dunida. waxaa loo igmaday inuu ka shaqeeyo ururkani baahiyaha horumarineed iyo bulsho ee ka maqan ummadda reer Awdal. ururku wuxuu ka kooban yahay xubnihiisu waxay ka kooban yihiin 15 qof, 3 dumar ah iyo 12 rag ah. 3 dumar ah maanta halkan ma fadhiyaan duruufaha Ramadaanka awgii bay nooga maqan yihiin. waxaana jeermaano ah Basra Jirde oo ah gabadh nagu qaaliya hawlaha inta badan samafalkan aad uga shaqeysa. sida uu sheegay gudoomiye Muumin daahfurka ururkan la magac baxay ummad oo maanta aanu daahfurnay kulli waxa uu ku saabsanaan doonaa oo ka shaqeyn doonaa oo loo asaasay horumarinta gobolka Awdal Gabiley iyo Silal dadka Adalyiinta ah ee ku nool ama beelaha Gadabursi. ururkan kulli in badan buu hawshiisa ay soo socotay maanta waa daahfurkii waxaan ku guda jirnaa maanta. inta Muumin yiri haddii aan ka tago waxa kale oo ururkan daahfurkiisa aan ugu talagalnay inaanu ku fulino ururinta taariikhda dadka Adalyiinta ah oo kulli aad iyo aad u baahsan. taariikhduna waxay u baahan tahay in sida xoolaha loo jiro ayay u baahan tahay. taariikhda waa la jiraa. haddii taariikhda la jiri waayo dee waxay noqotaa had iyo jeer baadiniman lahayn bay ag joogtaa. waxa kaloo iyagana aanu wada shaqeynta odayaasha guddida dhaqan ee gobolka Awdal u leeyahay iyadana waxaanu ka haysanaa mandate baanu ka haysanaa wada shaqeyn inaanu ka wada shaqeyno arrimaha gobolka baahiyaha jira arrimahan hadda cusub ee nagu soo cusboonaaday waxaasoo dhan waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo odayaashu inay maxay ahaydeen nagala shaqeeyaan waanay noo ballan qaadeen kulli dhowr is arag oo aan yeelanayna hawshaasi waanu isla ansixinay waanay ansixiyeen odayaashu haddii Ilaahay yiraahdo wada shaqeyntuna laga bilaabo maanta sidaas oo soconaysa hadduu eebedmo. marka waxaan rabnaa inaanu taariikhda dadka Adalyanka ah ama Adalyiinta inaanu ururino laga bilaabo maanta oo ay bishu tahay Ramadaan 19keedii. dhammaan waan salaamayaa teamka iyo kooxdan kuwada midaysan aan ku midaysanahay ururka midnimada Adal ummad. waxyaalaha aan isleeyahay ururkan uu qabanaya odayada dhaqanka ee beelaha Gadabursina aan ka wada shaqeyn doonno haddii la yiraahdo waa isku xirka iyo nidaaminta hawlaha ka socda gobolka gaar ahaan arrimaha xaaladaha taagan maanta. xaaladaha taagan dadka Gadabursiga dunida daafiyada jooga nin walba buu dadaalaya gabadh walba way dadaalaysaa laakiin waxa loo baahday urur dadaalada mideeya oo hal meel isugu keena. marka ujeedada u weyn ee aasaaska ururkuna waa taas. halka waxaan uga faa'iideysanayaa dadka ururkan matalo ee dunida daafiyada jooga fariimahan markay videogan soo gaaro ama daafurkan halkan ku daafurayno ururku markuu soo gaaro waxaan rajeynaynaa inaad insha Allah si buuxda aad ururka wada shaqeyn doonaan iyo odayada dhaqanka wad maasantii.